hadda Soomaaliya meelaha ugu warwarka ugu badan laga qabo ayay ku jirtaa iyadoo tii hadda wasiirkii iga horeeyay ka hadlayay ay ku jirto inay hoos u dhacday dhaqaalihii la siin jiray hay-adaha adduunku isugu gurman jiray aad iyo aad hoos ugu dhacday waxaan arkay hay-ado la dagaalami jiray aafooyinka xuduudaha isaga gudba sida ayaxa oo kale oo leh hadda anagu dhaqaale ma hayno hadduu kaco hadda ma hayno dhaqaale ma hayno ay ka mid yihiin haddii xanuun xoolaha oo kale ama beeraha ku dhacaya oo aafo ah oo coronavirus oo kale yimaado anagu dhaqaale ma hayno wayla kulmeen waxay yidhahdeen waa inaa isku tashataan annagu hadda hadduu maanta kaco ma gurma karno berigii hore dee diyaarado inakoo iska ayay samayn jireen way gurma jireen waxbay celin jireen hadda taas ma jirto marka waa in si weyn la isugu diyaar garooba jaamacadda iyo hay-adda waxaan ka codsanaynaa inay waxay halka ka soo baxaan noo keenaan nakii hore waxba idin kama hayno haddee waxun baa la sheegaa waxbaa la qabtaa qofkuna gurigiisu la tagaa haddaad cilmi halkan ka soo saartaan noo imaata oo agaasimayaashii iyo dadkii u qabta tababaro waxaad tirahdaan cilmigan aan soo helnay daraasadda shirkan waxaan ka soo baxay sidaana wuxuu qabataan beerihii ugu tagtaan baan doonayna laakiin kii horena anaku wax kabaano arag kana way idin sugayna insha Allah ta'ala ina wasaaradda timaada